waxa la isku afgaranaya iyo waxa lagu heshiinayo waxay dib ka imaan doonaan markii wada hadalladan oo wajiyo fara badan leh qaar badan oo kamid ah sidaan xog ku hayo aysan saxaafaddu weligood ogaan dooninin qaarkood saxaafadda loo soo bandhigi doono si loo turxaan bixiyo miitino fara badan ama kulamo fara badan oo xasaasi ah oo after record inay yeeshaan dabadeedna markii ay wax la isku waafaqo oo meel la isugu yimaado lagu wada hadli karo ummadda loo soo bandhigo wixii markaas la isku waafaqay waxay noqon doonaan ilaahay baa garan doona qolo waxay leedahay annagu haddaan nahay dowladda dhexe federaalka soomaaliya soomaalinimadu iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waa muqadas somalilan waxay leedahay annaga 1991 baan soo ceshanay madax banaanadeedii sidaas awgeedna gooni istaageena waa muqadas laakiin waa tan la wada hadlayo marka waxaan rabnaa iyadoo si hufan oo ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo ku jirto ay dadweynaha Soomaaliyeed uga qayb qaataan barnaamijkan wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland seed u aragtaa adigu fikirkaagu waa maxay barnaamijka caawifooda waxaan ku saaraynaa mawduucaas waxaan jecelnahay inaad nagala qayb qaadataan meel kastoo joogtaan wada hadaladan ayaa soo shaac baxay kadib markii madaxweyne Muuse Biixi uu tagay dalka Ethiopia oo dabadeedna la hadlay hogaanka ugu sareeya ay waxyaalo fara badan ka hadleen sida dhaqaalaha si loo kobcin lahaa nabadda looga wada shaqeyn lahaa labada wadan isku kaashan lahaayeen shacabku ay maaragtay kalsooni looga dhex dhalin lahaa iyo waxyaalo kale oo fara badan oo noocaas ayaa arrintan la soo qaaday waxaan ognahay dowladda Soomaaliya in iyada laftigeedu qoraal soo saartay arrintan kaga hadlaysa ay leedahay waan soo dhaweynaynaa wada hadalladaas maaragtay u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda maamulka Muuse Biixi Cabdi dadka qaarkood mararka qaarkood waxa laga yaabaa inay yiraahdaan waxaan waxba kama soo baxayaan hal la joojiyo hore u socon mayso haddii aan la wada hadlinin waxba soo kordhimayaan markii ummaddu hadasho ayay isfahmi kartaa xayawaankuna urku isku afgartaa bil'aadankuna wada hadalka iyo istixgelinta isku afgartaan waa maxay ra'yigaagu xagee dunida caawa ka joogtaa waxaan idinka codsanayaa si sharaf iyo karaamo ku jirto haddii ilaahay yiraahdo in aad khadka taleefankaad naga dhageysanaysaan oo buuq iyo qaylo aysan ka dhex yeeraynin si aanu isku maqalno haddaan si kale u dhigo fadlan aaladda aad naga daawanaysid iska bakti si aan isku maqalno haddaan mar iyo laba ku celiyoon ku maqli waayo qofka kale ayaan fursad siinayaa waana ka xumaa inaan saas yeelo sababtuna waxay tahay waqti aan lumina ma haysano barnaamijka TV-ga waqti yar buu siiyey ra'yigeenu ku aruurinaynaa cidna ra'yigooda caburin mayno cidna ra'yigoona ka hor imaan mayno waa Universal TV waa doon weyn oo dad badan qaada adigu dhinacaaga ka soo fuul qofka horeeya caawa barnaamijka khadka telefoon ku jira halo assalaamu calaykum soo dhawo walaal magaca soo dhawahay wada walaal magaca xagee joogtaana London jooga waa soo dhaweynaa magaca Maxamed Yuusuf Aliida waa soo dhaweynaa walaal maxaad jeceshahay see u aragtaa wada hadallada dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxeeya laga yaabo insha Allah taala madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi inay kulmaan oo wada hadal ay furmaan aad baan soo dhaweynayaa waan jeclahay inay Soomaaliya midowdo dib u soo noqoto 60kii meeshan ku midowno kale insha Allah marka adigu waxaad taageersan tahay in la wada hadlo oo la isku soo dhawaado oo ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda soo ceshta ra'yigaaga waa saas insha Allah aan aad u jeclahay aad baa u mahadsan tahay waxaan u gudboon doonaa oo ku mahadcelinayaa khad kale ku xiga halo soo dhawo walaal halo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله سولو ولا وحقاك مسؤول كاسو اي مغلي واي لين كلو كحيقة هلو السلام عليكم عليكم السلام سولو ولا رواكم على سيوة عن عدكا كورو يرقاد مقعا حقيت جوكتا محاسك هذا حقو حي أبشر حاج إبراهيم وحن جو أدلك النروي أهلا وسهلا سولو والله هرتاني سوادقيق وحواي هرتو يوغاندا هوتسو اسكو دمسويني هيسيين واقرتي أنا رأيي وحولي الصومالي إنه يسيسان فرحتنا وجرتا قربة دن إذا ما نروح يانو أرد لكن دلك إنه بسمان جعلها واقرتي مركا واحد يرجلنيسا إن لو وضح الله ومرجس ملاح الصوماليين أي صار فريستان أو مركز إن حل هلو إن سي حالده نقطة سي نقطة حالده لنعد دون تبع ولا عده لنعد دون تبع ولا عده لكن وحن لي لا بدل سميه oo lugay gacan iska jira hadda wadiisiyeen markaas naqday Afrika wadanka ugu horumarsan marka waxaan jeclaan lahaa aan ku tali lahay ummadda Soomaaliyeed in la isku tanasulo
dhalinyaraan nahay wadankeena mustaqbalkiisa ayatiinkeena dambe in laga fikiro sababto waxay tahay inay isku tanasuso taasaa ra'ligayga ahaa lahaa aad baa umahadsan tahay khadka kale ayaan u gudbaya oo kagu mahad celinaado norwejiga nagala qayb qaadatay layn kaloo ku xiga halo soo dhowo walaal magaca mahad baa la yidhaahdaa asalaamu calaykum calaykum asalaam mahad soo dhowo sidee u aragtaa wada hadalladan dhowaan la rajeynaya inay furmaan maxay dhalin karaan maxaa laga filan karaa maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore oo badnaa oo hore u qabsoomay mana lihi kuwii hore guuldaray ahaayeen meeshii la joogay meel ka fiican ayay keeneen waa la wada hadlay madaxweynihii hore somaliland mudane siilaanyo iyo dowladdii sheekh shariif dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaasay soo gaarsiiyeen maanta halkaan ay joogtaa maxaad is leedahay waa laga filan karaa wada hadalladan muhiimad intee leeg baysan leedahay ummadda soomaaliyeed inay wada hadasho marka ugu horeysa waa idin salaamayaa shaqaalaha dhammaan universal t v maaragtay marka labaad markii ra'yigii aan ka dhiibto arrintan oo maaragtay somaliland iyo soomaaliya horta waa dad walaalaa wada dhashtay waa dad isdhalay waa dad isku dhul ah waa dad ka wada tirsan siyaasaddu waa kala duwanaan kartaa laakiin dadku waa isku mid ganacsiga iyo howlaha iyo wax kasta waa la isdhexmaraa wax kala gooniya oo kala xiran ma jiraan wax wada hadal lagu waayo oo inta la wada fadhiisto oo maaragtay siyaasadan oo isdiidan oo laisla fadhiisto laisla xaliyo wax diidaayo hortaagan ma jiraan somaliland iyo soomaaliyana waa dad walaalaa waa dad weligood walaalo ahaan jiray waa dad weligood wada dhashta marka wax hadda cusub laba wadan oo wada hadlaysa ma ahan waa dadkii oo siyaasadda keliya ay ka xumaatay oo in la hagaajiyo loo baahan yahay waxaan kaloo ku darayaa bes inta aana ka bixin in markii ay wada fadhiisanayaan dowlada shisheeye saddex fadhin ay iyaga wada hadlaan ay wada fadhiistaan waxbaa kasoo baxaayo laakiin haddii dowlada ay dhex fadhiyaan aniga waxaa dhaliil baan ka qabaa in dowlada shisheeye ay udhexeeyaan ay u kala dab qaadaan soomaaliya ama somaliland ama dad wada dhashta laba qof oo walaalo ah oo hadda isla wada dhashteen haddii ay isdagaalaan ay isla fadhiistaan qof baa qaladka lahaanayo waxbaa kasoo baxaya laakiin haddii qof saddexaad udhexeeyo oo qof islaameed ah waxbaa meeshaas ka dhalan karo waa mahadsan tahay mahad waa kuu mahad celinaya khadadka telefoonada buuxda maan kaga gudbaya ra'yigaaga waa soo dhaweynayaa waxa uu leeyahay ha la wada hadlo ayagoo afkooda soomaaliga ha ku wada hadlaan gooni ha iskula baxaan ajnabi iyo shay yuusan dhex gelin waa dad walaalo ah ma kala maarmaan wada hadlo oo ummaddan xal u keena oo hogaanka u qabta oo ha la helo dariiq wanaagsan oo ummaddaanu ay markaas ayatiinkeeda ku maarayso ra'yigiisu inuu sidaas heeban umalaynaya aad buu mahadsan yahay mahad layn kaloo ku xiga halow asalaamu calaykum cabdixaafid waa ku salaamay waa magaceyga waxaa la yihahdaa cumar xasan cumareeta oo ku magac dheer oo dalka holland kasoo hadlaya gaalaha naimeqan waa hagaag cumareeta soo dhawow waa maxay ra'yigaagu wada hadalladan sidee u aragtaa maxaa ka soo baxaya maxay kaga duwan yihiin kuwii hore maxaa la rajeynaya inay qabsoomaan waa maxay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed wallahi horta marka hore waxaan kaaga mahad celinaa barnaamijkan quruxda badan aad wadid marka xigana wada hadalka sidiisaba uu fiican yahay dadka siyaasiyiinta waxay dhahaan aan wada hadalno aan heshiino waaye marka heshiiska kolleytaba soomaali waa soomaali ama somaliland ha ahaato ama soomaali koonfur ha ahaato labadaba waa soomaali shalayna si sharaf iyo wanaag ayay labadooda iskugu darsoomeen haddana haddii ay wada hadlaan ay isku soo noqonayaanna waa arrin aada u fiican kolleytaba marka aada ogaatid marxaladan hadda adduunyada ay marayso in wadamo ay isku darsoomaan maahne ma kala go-aan waa aragtay waa yurub oo dhan a isku darsoontay adduunyada hadda way isku darsoomaysaa marka anyway wada hadalka sidiisaba waxa waaye dariiquu furaa oo isku soo dhawaansho ah sida aad adigaba ka dhawaajisayba wada hadalkan waa xilligii sheekh shariif ilaa iyo hadda oo farmaajo oo socday oo dhowr jeer hakad galay laakiin dib ma laha mar walbaba waxa waaye kolleytaba maalin unbuu ilaahay qadiraa inay ay soomaali israacdo marka dadaalkana ma reebano waana soo dhaweynaa waana fursad aad iyo aad qaali u ah in la wada hadlana waa ay fiican tahay waayo shacabkii dadki waa isku wada mid waa isku luuqad waa ninka koonfur iyo ninka waqooyi waa asal ahaan iska soo horjeedaan waa dad isdhexgeli jiray cumareeto uma malaynayo in la isku hayo jinsiga soomaaliga in la isku hayo umalayn maayo waxaa la isku hayaa siyaasad iyo isfahan la-aan siyaasadeed laakiin la iskuma hayo jinsiga soomaaliga oo dadka jooga hargeysa inay soomaali dhalada yihiin iyo kuwa baydhabo jooga inay soomaali dhalada yihiin ay walaalo wada dhashay yihiin cidi iskuma hayso si kastaba haato geedka jiridiisa maaha waxaa la isku hayo
waad mahadsan tahay. Cumareeto oo jooga Netherland ayaa ra'yigiisa ka dhiibanaya wadahadallada maamulka Somaliland iyo maamulka dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeya sidii wajiga cusub oo yeelan doono ee wadahadallada ah. adiga ra'yiga ka dhex guuxaya waa maxay? xor baad fikirkaaga u tahay, wax walbood aaminsan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto. waxaanu jecelnahay inaanu maqalno fikirkaaga. halow may maqashaa walaal? halo waan ku maqlaa walaal. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhowo walaal. magaca xaggeesa joogtaa? aniga cabdiqani wadanka danimarkaan joogaa. waxaan leeyahay marka hore horta in la cuudubilaysto acuudu billahi min shaytaani rajiim. ilaahayna wuxuu dhahay wactasimuu bixabliillah walaa tafaraquu jamiican. tii islaamnimada ku iyo tii nebiga dhahay inaanan iloowin. kolley waxawaa adduunyada nin haraya male. hadduu dad hari lahay nebi maxamed hari lahay. shisheeye iyo shaydaanna waxaan leeyahay shartooda allah na dhaaftiyo. wixii dhacayna shaydaan iyo shisheeye ridi in lisaamaxo. tasaamaxana waxa waaye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay acfaa man dalamak wasil man qatacak. yacni in laisgoynin la wada hadlo, la cuudubilaysto. wax walbana ilaaha ka weyn, waxaana ka qiimo badan tasaamaxa iscafiska. aakhire adduunya dadka walaalaha kheyr ay helayin. adduunyada hadduu dad hari lahaa nebi maxamed aa hari lahaa. marka nin walba inuu walaalkay I understand in adduunka laga tegayo oo dadku aysan dunida joogaynin. calayhi salaatu wasalaamna uu ahaa khalqigii ugu qaalisanaa adduunka ilaahay abuuray, uuna tegey. qof walbana adduunka uu ka tegaya. tegitaanka markaan kasoo tagno annagoo weli adduunka joogna, wada hadalladan maxaa soo kordhaya? yaad sadka cuudubilaysanaysa adigu? aniga waxaa ka cuudubilaysanaya waa shaydaan. dadkan walaalahay maba ka cuudubilaysanaya. walaqad karamnaa bini aadama. ilaahay aana karaameey, ilaahay karaameey. wax aan ka cuudubilaysanaya waa shaydaan iyo shisheeye. marka saas kulehayna waxaway hadda ka horna waxaan dhahay aniga saatirow allahayow suuska iyo colaadaha naga wada sifeey, dadka iyo dalkaba nabad ku soo celi. waa gartay. aad baan kugu mahad celinaya. thinga waqti kugu filan aan ku siiyey. thank you. waa mahadsan tahay. layn kaloo ku xiga. halow. asalaamu calaykum. calaykum asalaam. fadlan kor u hadal muwaadin. codkaaga saan u maqla magacaaga iyo meeshaad joogtina iisoo horumaraado mahadsan. magacayga waxaa la yihahdaa abukar macalin baa la yihahdaa. waxaan joogaa Nairobi, Kenya. waa gartay abukar, soo dhawow. xilli dambey kuu tahay. waa ku mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadanaysid. waa maxay ra'yigaaga ku wajahan wada hadalladan u dhexeeya mas-uuliyiintan waaweyn? waa mahadsan tahay cabdixafiid. barnaamijkani oo aad dadka u qabataan waan kaaga mahad celinaya. arrimaha bulshada aad dadka soomaaliyeed mar walba aad dul taagan tahay. fadlan kor u hadal walaalow. waan kaaga mahad celinayaa marka hore barnaamijyada aad u qabatay bulshada soomaaliyeed ee dunida daafeeda kala jooga adiga iyo TV-ga. marka hore waxaa ii xiga arrinka wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. niyo arrintan waa arrin aad iyo aad farxad aniga iigu muujinayso. waayo dad walaalo ah oon kala maarmin ayaa awalba siyaasad iyo waxna dan ugu sugneen lagu kala xirxiray. ma garatay? waxaan isleeyahay marka haddii loo wajaha si sax ah xaqiiqada laga hadlan been leesu sheegin waa arrin muhiimadeeda leh. waa maxay sida saxda adigu waa saxda u aragtid? sida saxda waxa waaye Somaliland waxa saxda ay tabanayaan hoos loo galo ee waxaan aan dusha laga salaaxin. marka waxaad leedahay boogaha dusha ayaa laga dhayna, qolofta ha laga qaado oo xanuunka meeshuu ka jira ha loo tago. boogta haddaanan gudaha loo tagin dusha haddii laga taataabtaa waxay ku noqonaysaa mar walba inay kugu soo kacdo. dadka tabanayaan waxa aniga fikir ahaan waxaan qabaa Somaliland dad diidan Soomaalini ma ahan. wax baa la isku hayaa. wax dheef ugu muhiimsan waa wax dheef iyo wax qaybsi, awood qaybsi. marka dadkaas walaalahay nabad bay haystaan. anaga maqayn waan u baahannahay. ficilna ayagana waynu u baahan yihiin. gastoo dee Soomaalidan kale koonfurta oo colaado ka jiraan. marka wax ay maqli karaan in lagala hadlo. madaxweynaha yuusan ka warwareeganin. wadanka muxuu ugu sareeyo musabiixi waa maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan inaan aqoonsanahay. laakiin inuu sheegto dawlad madax banaan waxbaa gaarsiiyey ha lala hadlo. dadku way isu baahan yihiin. xaqiiqadan hala taabto. Somaliland maxaa rabtiin? war maxaa tabanaysaan? hadda ka hor baa dhib ina gaaray iyo waxa aynka ah. dhibkaas niyaha waa dhammaaday. wax badan baa dhacay. wax walbood ku qanacsan diyaar baan la nahay. aan wada hadalna walaalaheen noo kaalaya. mahadsantahay walaal oo kaaga mahad celinaya adoo Nairobi jooga. ra'yigaaga inaad dhiibatid waa muwaadinka ra'yigiisa xor buu u yahay. kaagana waanu soo dhaweynaynaa si kastoo ay isugu dhow yihiin ama si ay u kala duwan yihiin. waa adiga oo taleefanka qaata oo ra'yigaaga hawada soo mariya oo keliya kaa xiga iyo rabbi oo fursaddaa ku siiyo. waa hagaag. layn kaloo ku xiga. halow.
layn kale ku xiga halow halow السلام عليكم. calaykum asalaam soo dhow walaal السلام عليكم. calaykum asalaam waa ku maqlaa walaal soo dhowo magaca إذا عبد حسن إذا عبد حسن. waa gartay hiba soo dhowow maxaad jeceshahay inaad tiraahdid see u aragtaa wada hadalladan aanu ku barnaamijkan aanu ku arkay ku eegeyno ama ku aruurinayna ra'yiga dadweynaha iyo siday u arkaan wada hadallada labadaa mas-uul dhex mari doona haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Somaliland walaalaheen waaye in la wada hadlana waa jecelnahay waa taageeraya aad ugu faraxsanahay marka waxaad ku qanacsan tahay wada hadallada inay dib u bilowdaan aad iyo aad ugu qanacsanahay idaacadda xasan waaye oo la wada hadlo oo walaalaheen macnaha waxay qabaan la weydiiyo oo Soomaali baa leh dadka walaalo waaye la wada hadlo qof walba wixii ka maqan la dhaho maxaa kaa maqan warka hadalka si loo bilaabo saas ugu qanacsanahay waa mahadsantahay walaal thank you waa hagaag waxaanu ka hadlaynaa wada hadallada la rajeynayo dhowaan inay ka dhacaan dalka Ethiopia sida dadka qaarkood ay indicate gareeyeen isla mar ahaantaana madaxda Somaliland iyo Soomaaliya ay ku wada hadli doonaan wada hadalladan ayaa horey u soo socday ilaa dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tanna iminka ayay bilowday dabcan dhinaca kale madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Silaanyo ayaa dhinacaas kalena hogaaminayay iyo mas-uuliyiin kale laakiin cabaar ayay fadhiid ahaayeen haatana waxaa muuqata saansaan in dib loo wada hadli doono wada hadalladan ayaa soo shaacbaxay kadib markii madaxweyne Muuse Biixi uu tegay dalka Ethiopia halkaasuu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo waxyaalo fara badan ay ka wada hadleen dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa laftigeedu qoraal ka soo saartay ay ku soo dhaweynaysa in la wada hadlo go-aankii halkaas labada mas-uul ay ku qaateen waa Muuse Biixi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay soo dhaweeyeen وهجاج وحن إن شاء الله تعالى دي بيقولوا قندونا خلصت تلفوننا أنت عن إذن سو جذبنين لو مقال أو كوبان رأينا يعني نكو أرورينا إذن مليهن كسر جنس إذن مليهن تاجر إذن مليهن لنا على لسنا لكن وحنا إذن لنا هاي حدي لو وضح الله ما دويس أفغانيسا حال إسكو أفغانيا وما هي شروطه طبعا الشركة صوص عضة أي الوصول بندق دونا طبعا النتي في يونيفرسال أيات كداون زونتان هدي لهي هذا oo meel kastoo aad joogtaan isha baarkeeda idiin soo saari doona waxa xaqiiqada dhabta ah oo ay tahay layn kale ku xigaalo assalaamu calaykum calaykum assalaam waa kuwa ninkaas waa cabdullaahi axmed wey aad baan kusoo dhaweynaa cabdullaahi aad iyo aad umahadsantay walaal aad iyo aad baad umahadsantay waxaan mahad naqayaa barnaamijka waad hadiinayso horta marka hore aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la wada hadlo oo la isu yimaado mar labaad la isku soo noqdo wada hadalkuna wuxuun buu kordhinaya waxba xumayn maayo waa gartay wax maanta isu joogayaana ma jiraan waa dhab laakiin soomaalida heerka maanta ay marayso waxay u baahan tahay in xilli waliba xilliga uu leeyahay soomaali weyn mar bay jirtay east africa ba u sareyso u madax banaaneed waa dhab isticmaalkii iyo gumaysigii baa kusoo degay 1884kii waa la qaybiyey 5 meelood baa laga dhigay tiiraanyay inagu noqotay qaybintaas soomaaliya la qaybiyey oo dhaawac weyn bay inoo geysatay bacdal kifaax weyn la galay oo gobol waliba gaarkii u dagaalamay labadii ugu horreeyay xorriyadda qaatay waa kuwii isku darsaday maanta anigu waxaan qabaa wada hadalkaa inay kasoo baxda wejitaa ka duwani waa gartay oo 5 Soomaaliyeed oo la helo Soomaaliya oo calankeeda sidata Somaliland oo keeda sidata Djibouti oo keeda sidata Soomaaliya ogaden la oran jiro ina maamulkeeda leh 5 dawladood baa kasoo baxaya meesha oo Soomaaliyeed baa kasoo baxaya oo isbarbar taagan oo wada socda oo wada heshiiya waa gartay haddaan masaal ku soo qodo 13 dawladood carbeed baa jira Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait hadii la isku daro alta Juba ma dhama dhulka ku fadhiya nagana gobol uu khayraad buu leeyahay marka anigu wada hadalka waxaan doonayaa inuu u soo baxo in la is-i'tiraafo Somaliland maanta heerka ay marayso waxay u taagan tahay inay Soomaaliya dadka shacabka iyagu waa dad wada nool weeyaan wax laga hadlayo maamulkii isku darsiga weeyaan ina wax dambe la isku darsan laakiin laba dawladood oo isbarbar taagan oo side by side ah oo AU-da Somaliland iyo Soomaaliya wada fadhiisanaya Djibouti saddex waddan oo Soomaaliya wada fadhiisanaya
igad bay wada fadhiisanayaan united arab league bay fadhiisanayaan united nations bay wada fadhiisanayaan hal dambe ictiraafka ugu horeeya waxaan uga baahanaya walaalaha Soomaaliyeed cabasha ma taale war dadku wuu isu furan yahay baacsida waa naga dhaxeeya intu waa naga dhaxaysa walaalnimadu waa naga dhaxaysa in maanta cabanayo oo yaano la dileeyay ma jiray dalka waa la dhibaatada way wada gaadhay waxay la tahay Cabdullaahi waxay la tahay waqti kugu filan aan ku siiyay waa ku mahad celinaya Cabdullaahi wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee asagu yiraahdo wada hadaladan waxaan rabaa inay ka soo baxaan in Somaliland intiraaf Soomaaliya ay ka hesho dabadna dunida inteeda kale ay intiraafto oo gooni istaaga Somaliland uu noqdo waasay ay hadalka u dhigaan mid muqaddas inuu noqdo oo markaas ay gooni u istaagto ra'yigiisa weeye xaq buu leeyahay adiguna kaagaad xaq u leedahay si kasta uu kala duwan yahay waan soo dhaweynayna laakiin waxa muuqata in la doonayo inay dadku wada hadlaan oo nimankan mas'uuliyiinta ay hadlaan oo ay la yimaadaan siyaasad lagu turxaan bixinayo arrintan inta muddada soo socotay hadday ahaan lahayd in dib la isugu biiro iyo hadday ahaan lahayd Somaliland inay go'do siday doontaba ha ahaatee in dib maaragtay loo wada fariisto oo loo wada hadlo ra'yigiisu dhiibtay waa maxay adiga kaagu line kale ku xiga ayaa noo sheegi doona hello السلام عليكم عبد العفيف. عليكم السلام ورحمة الله. وان سلام adiga iyo daawayaasha Universal magacayga Axmed Baleeda Birmingham ma ka soo hadlaya. Si waxa ma ku soo dhaweynaa Axmed. Cabdi Xafiid waxaan la qabaa ra'yiga ninka iga horeeyay Cabdullaahi baan la qabaa. Marka waxa weeyaan ummad gooni isku taagtay oo 60kii gobonimo qaadatay bay Soomaaliland ay tan 5 maalmood bay ka dambeysay laba Soomaaliyeed ama laba wadan isku tagay bay ahaayeen. laakiin isbdarrada meesha taala waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin laba gobol ba isku tagay laba gobol isku ma tagin laba wadan oo laba gumeysi kala haystay oo laba independence kala duwan laba gobonimo kala duwan oo kala taariikh ba isku tagay meesha kolka waxa weeye oo reer wixii dhacay way dhaceen laakiin haddana dhibaatada kale taala waxa weeye imga marka dawladda dhexe Soomaaliya ay ka hadlayso amba shacabka Soomaaliya ka hadlayaan Jubbaland oo kale marka la soo qaadayo Jubbaland ba lagu dhawaaqaa Puntland ba lagu dhawaaqaa laakiin Somaliland lagu dhawaaqo waxa la yiraahdaa waqooyi baa la yiraahdaa gobolada waqooyi baa la yiraahdaa taas waxay ku tusaysaa xaqiraadu halkii taagan tahay ilaa imka iyo sida loo kala fog yahay waa gartay si fiican baan ku afgartay dib haddaan ugu noqono wada hadaladan maxaa ka soo bixi kara intaad Cabdullaahi ku waafaqsan tahay maahana maxaad kaloo ku biirin kartaa leeyo horta umaleyn maayo inay wada hadaladii London iyo Istanbul inay wax dheeraad oo ka soo bixi doona umaleyn maayo inay ka soo bixiyaan laakiin in la wada hadlaa waa wanaagsan tahay okay of course in la wada hadlaa way fiican tahay laakiin wada hadal international ba ka sii fiicnaan lahaa baan qabaa halka hadii sabab laga wada hadlayo magaranaysa saddex qof ama se magaranaysa waxa wanaagsanaa EU-da oo kale in laga wada hadlo ama IGAD oo kale oo loo yar balaariyo wada hadal la balaariyo aasa ka sii fiicnaan lahayd marka ma ku muuqataa haddii dad ajnabi oo badan la keeno inay faraha ka sii baxayso ka wacnaan lahayd in mas'uuliyiintan ayagu maqasin ay isku soo xirtaan ay ayagu marka hore ayagoo lagu dhex jirin ay si fiican wada hadlaan af Soomaali ayadoon kaamarad oolin oo mikrofon oolin oo cod la kala duubanaynin oo si hufan oo raganimo iyo sharaf ku jirto loo wada hadlo dabadeedna marka ummadda wax bisi loo keeno ma aysan ku muuqanin way fiican tahay way muuqantay Cabdi Xafiid waa runta laakiin tiisa waa inta cad laga noqdo arinta hadayaan daacad ka ahayn hadii labadoodii leeyahay waan isku imaanaynaa kullayba waxaan maleynayaa kullayba horta daacad meesha kama muuqato meesha aad baa umahadsan tahay Axmed oo jooga bartamaha Ingiriiska gaar ahaan magaalada madaxda labaad ee dalkan Ingiriiska Cabdullaahi aadan ayuu ku ra'yahay rajo badan kama muujinayo laakiin wuxuu leeyahay by all means hal wada hadlo adigu maxaad leedahay khad kale ku xiga noo sheegi doona halaw may maqashaa halaw hagaag waa idinkaga mahad celinaa telefoonadiina iyo fikradihiina waxaan kaloo la soconaa TV-ga Universal website ee Facebook-giisa inaad barnaamijkan kala socotaan oo ra'yigiina iyo fikradihiina ku dhiibanaysaan oo halkan aan jooga igaga muuqda waan idinkaga mahad celinaynaa fikrado kala duwan oo midabyo badan leh ayaad bixinaysaan xaq baadna u leedihiin waan soo dhaweynaynaa halow line kale oo ku xiga assalaamu calaykum calaykum asalaam waxaan ku soo dhaweynaa walaal magaca xaggee joogtaa waa maxaysan ra'yigaagu xareeda la yidhahdo walaal haya xareeda soo dhawow waxa weeye walaal in la wada hadlo ma wax xun laakiin waxaa xun in muxuu ahay tole Ethiopia iyo dawlado kale inay ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaadiyaan baa qadam kartay waa gartay marka waxaad leedahay Ethiopia inay dhexdhexaadiso ma aha miya ma Ethiopia inay dhexdhexaadiso ma ahan Soomaalidu shalayta markay wada tagaysay cidina ma dhexdhexaadinin cidina kuma dhex jirinin ayaga iskooda soo biiray
marka waxaan ku idhahdaa iyaga inbay tahay inay ayatuunkooda iyo maxaan ku dhahaa noloshooda inay ka wada hadlaan ethoobiyaankan wada hadal siinayana wuxuu ka dan leeyahay dantiisu ka leeyahay muxuu ahayd asxaabku uma wanaajinayo xageed jeclaan lahayd wada hadalladan in lagu qabto marka adigu hargeysa walaala hargeysa ama muqdisho waa gartay marka saasaan dhihi lahaa dadka madaxda inay saas waay hargeysa ama muqdisho dee dadka wax dhexeeyaan oo ay tahay inay wada hadlaan oo ay masiirkooda ay ka wadaan waa in dadaan isku af ahayn oo isku dhaqan ahayn isku diin ahayn inay isku turjumaan ma ahan oo ay kala turjumaan xareeda aad baa umahadsan tahay xareeda waxay u muuqataa inay waxay leedahay dalkeena gudihiisa lagu qabto ha la wada hadlo haddaad dhinac kale ka fiiriso hadalkeeda waa fikrad dad badan ay qabaan haddii ay dadka soomaalida gudahooda ku wada hadlaan malaayiin lacagaa lagu bixinayaa shirarka noocan oo kale ah hargeysa lagu qabtay kasoo qaad hodheeladoo dhan baa buuxsamaya dhaqaalaha kor u kacaya makhaayadaha ayaa cunto laga cunaya dad baa imaanaya fara badan oo wafuud ah sumcaddii ayaa kor u kacayso meel nabada wax lagu qaban kara ay noqonaysa haddii muqdisho lagu qabto sidoo kale weeyaan laakiin waxaa muuqata haatan dowladda etoobiya inay maaragtay iyadu hormuud ka tahay inkastoo caalamku uu qoonsan yahay una astaameeyey inay dowladda turkigu arrintan ay gasho haddana booqashadii madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maaragtay arrintan ay ku leedahay uu tegay dalka etoobiya siday doontaba ha aato meeshii la rabo ha lagu qabto maxaa kasoo bixi doona maxaa shirarkaanu xambaarsan yihiin waa maxay natiijada ugu dambeysa oo la rajeynayo waa maxay qodobada lagu wada hadlayo muhiimad intee la eg bay leedahay in la wada hadlo oo saxaafadda aan la isku marinin hadallo xanaf iyo cuqdad ku abuura jiilal fara badan oo soo socda oo ayagu cidna aan dembi ka gelin layn kaloo ku xigaalo halo asalaamu calaykum salaam waraxmatullah mudana soo dhawow magacaa magacay waxaa la yidhahdaa liibaan axmed maxamuud liibaan axmed xaggee joogtaa walaal london brother aad baan kuusoo dhaweynayaa ra'yigaaga baan jeclahay inaan maqlo duniduna ay nala maqasho ra'yigayga wallahi waxaan u sheegi lahaa dadweynaha soomaaliyeed iyo dadweynaha somalilandba horta de heshiiska waa wax wanaagsan oo fiican oo in lagu heshiiyo laakiin waxaan cabdixaafid oo kuu sheegi lahaa dadkana maqashiin lahaa ma gobolada dhexaa lala heshiinaya oo somaliland ka mid ah mise somaliland oo dhan baa lala heshiinaya because somaliland hadday wada socoto waa lala heshiin lahaa laftigeeda meeshaan ka hadlaya waa garanaysaa somaliland hadday wada socoto ma garanaya adigu noo sheeg fadlan waxa weeye somaliland hadday wada socoto iyo gobolada dhexe ahayn waa lala heshiin lahaa dee somaliland oo sool sanaag iyo cayn ifribaale ay ku wada jiraanin somaliland oo wada socota laakiin ma goboladii dhexe somaliland ahaan baa waxaa lagula heshiinayaa gobolada dhexe oo hargeysa ah taas waa meel somaliland midkaan u sheegay waxa weye reer somaliland waa dad fiican oo walalaheena waxaan dhihi lahaa aqoonsiga aad banaanka ka raadinaysaan gudaha ka raadiya oo dadka idinla degan oo somaliland idinla mid ah soo urursada markaa meel u wada jeestaan qof idin celin kara ma laha aqoonsigiinana waa diyaar marka soomaalida kale waxaan dhihi lahaa markaynu xello baynu dadka wax ku darsan karnaa dee dab gubanaya cidna ma rabtee walaalaheen aynu sii dayno markaynu wax la nimaadnana aynu ku darsano laakiin dee cidna dab gubanaya ku darsan mayso dee nimankan dadka gubanaya de dhinaceena brother nabadgelyo fiican kama jirto dhinaceena maxaa ka wadaa soomaalida kale adoo naftaada u hadal soomaalida kale oo dhinaca muqdisho iyo meelaha kale waxba kama jiraan sida iyagu wanaaga u haystaan uma haysano marka waxaad leedahay goboladan aa sheegaysa nabad baa ka jirta koonfurtana nabad kama jirto macnaha dee iyagu waxa ku doonayna waxa weeye qofka dabbaxaya cidna kugu darsan mayso laakiin magaalo shidan baa cida kugu darsataa markaynu nabadgelyo dhalshano oo soomaalidayna israacnayna ku darsanayna marka waxaad leedahay dhinacaanu nabad ha noqoto hawshu ha degto iyadoo nabad la yahay laisku soo noqdo hala wada hadlo hala wada hadlaa somaliland aqoonsiga banaanka ka raadinayso gudaha ka raadiso oo dadka gobolada somaliland ah hadda gobollo dhexaa haysta iyo gobollo dhexaa wasiirada haysta iyo gobollo waxaa soomaali kama dhamaatee iyaga oo wada dhan aqoonsiga gudaha ka raadiso banaan iyo ethiopia iyo kenya iyo waxba iyaga ka raadina iyadoo wada socoto cidna ma hor istaagi karto waana salaamantii aad baa umahadsan tahay I think wada hadalladu siday sheekadu u socoto haddaad si fiican ula socotid wararkan aad ka daawanaysay ma ahan in musabix uu ka raadinayay intiraaf ethiopia ujeedadu sidaas ma ahayn waa haddii aan hadalkaaga ku fahmay si kastaba ha ahaato interesting dynamic baad keentay oo ah gobollo maxay tahay somaliland gudaheeda ah ayaan isku waafaqsanayn arrintan sidee taas loo xalinayaa dhanka kale koonfurtii nabadu kama jirto waa sa adigu hadalka u dhigtay bal horta marka hore gudaheena aan kasoo shaqeyno qolyahaana gudahooda kasoo shaqeeyaan waagii roob da-o oo balliyadu ay buuxsamaan hala isku soo noqdo waa hagaag layn kaloo ku xiga asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi soo dhow walaal magaca xaggee joogtaa waxaa la yidhaahdaa samiga cabdilcasiis waxaan joogaa birmingham walaal aniga kulley waa dadka kugu daada ahaan ahay marka ilaa iyo hadda meeqaa jirta cabdilcasiis aniga kontonkiiyada afka la gelaya insha allah waa gartay hore galataa marka walaalo waxaan ku weydiiyey aniga wax kale ma aha ilaa iyo hadda waxaan raadiyaa ilaa iyo hadda taariikhda Soomaaliya iyo Somaliland ilaa iyo hadda ma garanayo calanka Soomaaliya aan la nimid ay sheegayaan siduu u yeelay su'aashaas Abdaiz walaal wado waxaan u malaynayaa insha Allah taala inaad yara fogaatay oo calankii iyo 60kii dib ugu noqotay mawduucana caaw wuxuu ku saabsan yahay wada hadalladan u dhaxeeya mas'uuliyiintan muhiimadda ay leedahay waxa ka soo bixi kara baahida loo qabo iyo inay siyaasiyiinta Soomaaliyeed la yimaadaan wada cad oo ummadan masaakiinta ee Soomaaliyeed lagu turxaan bixinayo dhibaatooyinkeeda badaha ku daadanaysa walaal waa fahamsanahay laakiin waxa ka horeysa in marka hore la xaqiijiyo asalka la raaco dadka calankan ay sheeganayaan in la tuso kadibna aan aqoonsano aniga koonfurtan ku dhashay koonfurtan ku soo barbaaray oo u ogolahay iska go'een laakiin calanka ay sheegayaan macalana la yimaadeen gartay aad baan ku maadalay Cabdiciis maadaama mawduuceena aysan ahayn waqti baan ku siiyey laakiin waxaanu dib ugu noqonaynaa topigeena caawaanu ka hadlaynay oo ah wada hadalladaanu muhiimad intee la eg bay leeyihiin xagee ku habboon in lagu qabto maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan maxay kaga duwan yihiin kuwii hore ee dowladdii Sheekh Shariif iyo dowladdii madaxweyne Siilaanyo ay daadihinayeen ka soo tag dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Siilaanyo wada hadallada dhex maray tan iminka ayay bilaabatay Muuse Biixi waa cusub yahay dowladdan kale 2 sano ayaa u dhamaatay maxaa la rajaynayaa wada hadalladan inay ka soo baxaan oo u cuntamo bulshada Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan siyaasadda ugu kala duwan deegaanmo kala duwanna ku nool Soomaaliland waxay leedahay anagu gooni istaageenu waa muqadas Soomaali weyn waxay leedahay anagu goolnimadeenu inaan isku biirno oo mid noqono waa muqadas halkaas ayay ka cakiran tahay sidee loo turxaan bixin karaa maxay la imaan doonaan labadan mas'uul ee ku cusub saaxada kursiga madaxweynenimo waa Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo maxay ku kala duwan maxay la imaan doonaan mawduuceena kaas ayuu salka ku hayaa meesha lagu qabanayo hadda dhinac ka fiirsan muhiim gaar ay leedahay oo Soomaalidu inay wada hadasho waa daruuri haddii lagu qabto gudaha waxay keeni kartaa isku soo dhawaansho iyo maxay lahaa inaan dad ajnabi ah oo san dhex gelinin haddii wadan qalaad lagu qabanayo Djibouti lagu qaban karaa Ethiopia lagu qaban karaa waxay ka dhici kartaa shirku Istanbul buu ka dhici karaa Turkiga marti gelin kara inkastoo walaac Soomaaliland ka muujinaysay waayahan dambe arinta Turkiga oo darawalka ka ahaa waa dowladdii hore ee iminka madaxweyne Siilaanyo hogaaminayay dhowr jeer midiyaha ka aragteen iyagoo le Turkiga arintaas daacad kama ahayn siday doontaba ha ahaato meeshii la rabo lagu qabto haddii la qabto suurtagal ma tahay in laga baxo nimankan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee kaligood ay ku wada hadlaan ayagoo wada hadlay oo maalmo badan is hor fadhiyay oo wax badan isla turxaan bixiyay oo wax badan isku afgartay wax badan isku khilaafay inay ummadda soo hor istaagaan iyo waxay ugu yeeraan international community oo markaas waxaanan isku waafaqnay ee ummaddu ay adduunku ogaada ay yiraahdaan ma laga yaabaa wuxuu ku dhamaan doonaa caro iyo dagaal iyo cuqdad iyo in la yiraahdo farta la isku fiiqo siday doontaba dib baanu ku ogaan doonaa waxyaalahaas laakiin waxaa muuqata caawa intiina khadka telefoonka ku jirtay in la wada hadlo inay daruuri tahay inay ka muuqato haddii ay tahay dadka Soomaaliland taageersan iyo haddii ay tahay dadka Soomaali weyn taageersanba la iskuma khilaafsana aan wada hadalno kaas haddii la wada hadlo waa la heshiin karaa tawfiiqda Allahna waajibajiyo laynka telefoonka ku xiga daan ugu dubna halaw السلام عليكم. عليكم السلام ولا سو دhowo xagee dunida ka joogtaa magacaas magacaygu waa Nasteex waxaan joogaa Bristol ku soo dhaweynaya barnaamijka waa la socotay hore u gudagal ra'yiga reer Bristol soo gudbi ma sha Allah markaan ka hadlo wada hadalku wanaagsan yahay ee laba qof wada hadlaan waxba lagu wax qowda laga helaa waa garta tan labaad dowladda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya inay wada hadlaan way fiican tahay waa garta Siilaanyo iyo Sheekh Shariif way wada hadleen dowladdiisii Xasan Sheekh
iyo silaayo dawladda uu hogaaminaya way wada hadleen farmaajo laga rabaa marka tiimkiisa iyo Soomaaliland Muuse Biixi inay wada hadlaan waa gartay wada hadalku wanaagsan labada qofood markay wada hadlaan waxa isku haystaan way cadeyn karaan waxaan rajayn lahaa meeshii laga qabtay waxaan rajaynayaa meeshii Ethiopia looga qabtay shirka in looga qabto dawladda Djibouti ee walaalahay taasoo wanaagsan in Soomaaliya ku wada hadlayaan dadkii ay wax isla fahansiinayeen haddii kan qaldan yahay kan saxi lahaa waaga aniga ra'yiga ay la tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay ra'yigaaga waa soo dhaweynaa naseexa from Bristol aad baa umahadsan tahay thank you waxaan jecelahay laba qof inaan fursad siiyo intaana laba muuqaalo oo kooban idiin soo dayn dabadeedna aanan dib ra'yigeediina iyo fikradihiina aanan u aruurinin ogow xor baad u tahay fikirkaaga cid kugu mucaaradayso ma jiro haddii aadan cidna aflagaadaynin caawa dhan TV-ga adaa iskale kamana rajeynaya dadka waaweyn ee sharafta iyo karaamada leh ee barnaamijkan iyo barnaamijyada kale TV-ga Universal ka baxa inay aflagaadeynayaan dadka ama ay caytamayaan waxyaalaha loogaga soo tegay social media waxa la yiraahdo qofku wuxuu doono isku qoro sidii inaan la xisaabeynin oo kale وحقاق لين كلو كحيا وقد السلام عليكم. عليكم السلام عبد حافظ وقت السلام. وأكسورو وين ولا المجا حقيس جوكتا. ولا الوحليمة كلنا from Bristol. سودو كبدي كارويس بريستول بيكسو هالليسي برمنغهام ولا كسو هاللي السويدن ولا كسو هاللي دنمارك ولا كسو هاللي ما حد جعش هنا ترى ولا. ولا الوحن جعل هاي وحن سودو وين هرت إني هذا الفرق يكسو نقدان. oy wada hadlaan oo Soomaaliya si soo dhawaato waa soo dhaweeyna qof Soomaalinimada aad ugu dheeraan oo aad u jecel Soomaaliland waa jeclay Soomaaliyana waa jeclaa dadka dhanina waa wada Soomaali laakiin midaan codsan lahaa anugu iyo jeclaan lahaa hadday wada hadlayaan oo isu imaanayaan inay horta waxaan ku raacsanahay shirkii dadkii hore inay si yimaadaan oo iyagu miis wada fariistaan marka iyagu dhexdooda dawladda Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadlaan raggaas walaalaha ay wax garadka madaxdaahi markii iyagu wada hadlaan waxun baa soo bixi doona aad u wanaagsan waxaan kaloo jeclaan lahaa wada hadalkaasi inuu hargeysan noqdo codsigayga caawa waxaan jeclaan lahaa farmaajo iigeeya waxay daboobi lahayd markuu hargeysa intuu tago uu fariisto uu darinta dhigo gobasha hargeysa markuu dhigo walaalahayga wax badan tabanaya wax badan cabanayay aan maxay ahayd uu yiraahdo waa nakanahay maxaan idinka daaweynaa hagaag walaal warkaagu waa cad yahay waa mahadsan tahay thank you waqtigoo yar un baan kuu soo koobayaa newskii baan eryanaya line kaloo ku xigaan u gudbaya waa mahadsan tahay thank you hello assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhow walaal magaca waa magacaygu cabdixakiim aadan maxamed oo jooga waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi وان كاغا مهد اقصدوا وين وضع عبد الرشيد وعبد الحكيم ولا عبد الحكيم رالي سو عن كو مقل دبنها ويرا دhow marka hadlayso fadlan ولا وعبد الحكيم هذا محمد oo jooga Nairobi hay عبد adaad maqashid ku maqlaa عبد الحافظ waa ku mahad celinaya adiga TV-ga barnaamijkana waa soo dhaweynaya ra'yiga kooban hadii aan soo koobo anigu waxaan qabaa walaal arrimahan Soomaaliya iyo gobolada lagu yeero Somaliland hadii loo baahan yahay Emirates dhalaan in run laga sheego Somaliland dhulka hadda ay sheegta waxaan maleynayaa de uma dhama barnaamijka go'itaanka ee Soomaaliya siyaas lubeysa ma rabaa inaan uga hadlo ma rabaa inaan cidna ku xadgudbo laakiin waa la og yahay dadku inay waaqici ahaadaan inay ogaadaan goboladan hadda Somaliland ay sheegato salahan anigu misal Soolaan ahay marka micna ima sameynayso danna kamaligi weligina kuma fikirin inaan Soomaaliya ka go'o anigiyo dad badan aan isku degaanahayba marka sida ay u jecel yihiin maamulka Hargeysa ka jira suu u jecel yahay inaan lagu xadgudbin oo uu uga cawdo had iyo goor waa inuusan bulsho kale oo dhul degan oo degan uusan korka ka maamulin oo ku gorgortamin dawladda Soomaaliya ilaa ay garato in arrimahaas isku jiraan gobolada waqooyi ka jiraan oo cid kuma tali karta arrimo go'itaan iyo isu imaansho ay jirto oo waa gartay cabdow gudihii baad u soo noqotay waxaan ka hadlaynay kulankan madaxweyne Muuse Biixi iyo mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay wada kulmayaan labadan mas'uul muhiimad intee leeg ayuu leeyahay maxaa mira ka soo bixi kara muxuu kaga duwanaan karaa kuwii kale
oo horey u dhacay ilaa dowladdii hore soo bilowday oo ayaga laftigooda mudnaan gaara leh maxaa yeelay madaxweyne Sinaayo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed meel fiican bay ka soo bilaabeen ayadoon Soomaali wada hadlaynin xasan Sheekh Maxamuud iyo Sinaayo isla sii qaaday halkaan joognaa soo dhawow walaalo gacali waad mahadsan tahay cabdixaafidow waa run horta dadku inay wada hadlaan waa wax muhiim ah dadku waa dad Soomaaliyeed waa dad ehela laakiin waxaan ka hadlayaa anigu arrimaha marna lagama hadlin arrimaha masiiriga ah ee asaasiga ah wadamada la soo saaray markasta waa la socon jiray tusaale ahaan arrimaha hoose oo la isku hayo lama dhaadhaco midda kale anigu waxa aan shakhsiyan qabaa fikirkayga in ilaa iyo xaqiiqda looga dhawaanayo oo cid walba ciddii matalayso dhabtaa looga gudbayo inaysan wax naf loola taaban karaa aysan kasoo bixi karin marka waxaad leedahay sidii dadkii hore ay soo jeedsheen boogahan dusha laga dhayay naga daaye run isku sheega gudaha ha loo tago caloosha ha la tago dibadda ha la soo dhigo dabadeedna dadka ha isdaaweeyaan exactly saasaan aaminsanahay laakiin qodobo iska korkaxaadisaho ha la isu socdo saa ha la yeelo dee wax baynaa soo kordhin mayso waa in exactly saasaan ka wadaagmadana waana mahadsantahay aad baad umahadsantahay umahadsan tahay thank you waa ku mahad celinaya dabcan waxaad ogtihiin qodobo hore oo soo baxay shirar hore loo qabtay in wada la qaybsado khayraadka inaan saxaafadda la isku marinin waxyaalo maaragtay cunfi dhalin kara amase dadka iska horkeeni kara la is-ixtiraamo la istixgeliya ayaa ka mid ahaa wuxuu leeyahay kuwaas waa muhiim laakiin xaqiiqada dhabta lagama hadlin oo caloosha lama teginin dadka qaar waxay leeyihiin meesha lagu qabanayo waa inay noqotaa gudaha dalkeena qaarkiin waxaad aaminsantihiin meeshay doontaba ha ka dhacdo in la wada hadlaba inay wax weyn tahay sidee adigu wax u aragtaa ra'yiga kaa dhex guuxayaa sacaawo waa maxay xaggee dunida ka joogtaa codkaaga kariimka aanu maqalno khadka ku xigana aan u gudbo halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقصد وين ولا مجاعة حاجات دنيا كده جوكتا وما معي رأيك. أنا هو الصوماليات بان هاي لدن بان شو. وأقرتي ما حد جعش هنا ترى هذا جبهة هو الصومالية ولا هذا الله كوجهن. هذا هذا يا مستقيم. أنا هذا إنه الدنيا وين اللي جيسني ساعة تي في هاي جلس عن خد لك تي جلس إن شاء الله. أنا هو حقيقة الصناعية. waxaan ku raahayay wada hadaladu way wanaagsan yihiin waa gartay insha Allah wax qayb ka soo baxana wala waa ilaahay waa laga filayaa laakiin waxa jira dad ile waxaan ku raahdaa dadkan cabanaya annagu ma cabanayno maxaan ku raahdaa walaalaha iyaga kale laakiin annagu waxaanu wixii maanta lagu wada hadlaha annaka markaad leedahay idinku yaa tihiin yaa annaka markaad leedahay adigu yaa u hadlaysaa anigu waxaan ka hadlayaa Somaliland waa gartay marka adigu Somaliland ma soo jeedaa miya anigu Somaliland baan ka soo jeedaa waa gartay wax yar cod ku ruqaasan ku maqla marka hore u guda gal wada inaan ku fahmo baan doonayay waayahay anigu Somaliland baan ahaa ku iri waa gartay iminkaan ku maqlay wada hore u guda gal hooyo Soomaaliyeed marka waxa weeyaan horta hadalkiinaban inaan la heshiin inaan wada hadal lagu heshiin oo ka muuqda sababta oo ah waayo dadka halkaa ka hadlaya sida u hadlayaan raygooda ka dhiibanayaan waa unba inta kalena la qabtaa meeshii waxaa laga soo qaadayaa Somaliland dad cabanayo in loo turxaan saaro uun doonaya laakiin anagu waxaanu doonaynaa wada hadalku inuu noqdo inaynu noqono dad walaala ah oo isgarab dega oo ama xata kala samaystaan ama xataa isku banaanaada laakiin labada laamood aynu maanta kala sheeganayna kala ahaaba waxaan ku yiraahdaayay annaguna dawlad baanu maanta nahay idinkuna dawlad baa tihiin koonfurtuna dawlad weeyaan waxaan ku dhahay Somaliland dawlad weeyaan laakiin maxaa meeshii yaal oo anagu dadka lagu soo yarjiidanayo waa xagga wali aqoonsi la'aanta laakiin aqoonsiga annaga maanta wuxuu nagala maqan yahayba ma ogin waayo inay dawlad leedahay waanu leenahay oo waliba dawladaha iyo dawladda xamarba kaga horeyno oo doorashadeena iyo maxaan ku yiraahdaa labada madaxweyne laga gudbanba aanay ahayn haddana sheeganaysaan maxaan ku yiraahdaa
ictiraaf haysataan oo magacii soomaali weyne markii hore la wada qaatay waa gartay hooyo soomaalida waxaan malaynayaa waqti badan baan ku siiyey warkaagu waa cad yahay waa kuu mahad celinaya ra'yigaaga xaq baa u leedahay waa mahadsan tahay hooyo soomaaliyeed thank you waa hagaag hooyo soomaaliyeed oo kasoo jeeda somaliland oo iyadu ra'yigeeda dhiibanaysay ayay ahayd oo le anagu ictiraaf cidna ugama baahnin bash iyo barwaaqan ku noolnahay si kastaba ha ahaatee in la wada hadlo oo dadka walaalaha soomaaliyeed wada hadlaan nimankan mas-uuliyiinta gaar ahaan oo ay turxaan bixiyaan boogahana ay dhayaan xal waarana ay la yimaadaan ummadda soomaaliyeedna ay u noqdaan tusaale wanaagsan ayay dadkooda rajeynayaan soomaalida waxay ku maamaadaa war jiraaba cakaaro imaan khad kaloo ku xiga halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله aad buu codkaaga ugu gaabaya mas-uul وين بقشا ولا aad buu codkaaga u hooseeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wuu dhaabaa sidii hore wacalaykum assalaam waraxmatullah soo dhawow ولا المعنى واحد كاسو وحيا زامبيا ماشي اللي هذا لوساكا مقعي وجمال jamaal soo dhawow maxaad jecesha inaad tiraahdo walaal waxaan rabaa walaa gudiga hadalka iga qabanin waxaan kuu sheegayaa qofka keliya nahay oo kasoo horjeeda wada hadalka qofka he keliya oo kasoo horjeeda waqtigan adigaa kasoo horjeeda wada hadalada si fiican waqtigan asaga wada hadalka jamaalow dibnaha u dhawee waxaad tirisaan kuu maqlay waxaad tahay shaqsiga qura ee kasoo horjeeda inay wada hadaladan u qabsoomaan haa walaal maxaane haddaad imaqli karti si fiican baan kuu maqlaa halkaa ku hay telefonka halkaa ku hay hore gudagal waay okay waan kasoo horjeedaa wada hadalka waay sababtu waxay tahay nimanka hargeysa ka taliya waxay aaminsan yihiin in ay muqadas tahay arrintoodu meel kasta oo lagula hadlana waxay diyaar u yihiin in aanay wax positive a keenin ma garata waa garatay dad xamar ama dadka koonfurtana waxaad moodaa inay mar kasta ay qaadanayaan weakness iyo jileecba inay qaadanayaan ma garata marka maxaa rabta inay sameeyaan oo weakness iyo jileec kaga muuqda waxaan u arkaa anigu xalka inay tahay in laga dhowro waktiga waktigu waxbuu daaweeyaa in laga shaqeeyo keliya amniga magaalada muqdisho iyo cadaaladeeda deedna meesha ay arrintu aakhirka dambe markay bislaadaan in la isu yimaado laakiin hadda waktigan aan arkayo waxaa ii muuqata in arrintu ay tahay in ay ku dhololayaan ama ay doonayaan dadkaasi in quwado saddexaad ay dhex galaan ummadda waxaad arkaysaa inay traitornimo tahay ama ay qaacidnimo qaran tahay how laakiin hadalkaagu inuu constructive noqdaan jecelahay sidee bay traitor u noqonayaan hadday leeyihiin madaxweyne muuse biixi waa la fadhiisanaynaa waa la wada hadlaynaa u yara kaadi jamaalo asagiina uu leeyahay waa la fadhiisanaynaa waanu wada hadlaynaa ummaddiina ay leedahay in la wada hadlo waa daruuri haddii la wada hadlo wuxuun baa la isku afgaranayaa meesha maanta la joogana waa la dhaafayaa waa maxay dhibaatada ku jirta halkaa yara qiic adoo soo koobaya waqtigaa yaryanaya halkaa waxay tahay saaxiib wadahadalka shuruudda ka horeysa oo miiska ay odayaashu la yimaadeen reer hargeysa waxay tahay inay muqadas tahay oo aan laga wada hadli karin arrimaha somaliland taa ma aanay qarin si publica ayay u sheegeen marka mar kasta oo ay leeyihiin markhaati baan u baahannahay iyo cid kale macnaheedu waxay tahay in ay samaystaan waxa la yidhaha c v iyo intaasoo jeer baan ishor fadhiisanay laakiin aanay qarannimada soomaaliyeed ummadda u muuqanin iyaga oo ogsoon in qarannimada la-aanteed iyaguna aanay waxba noqonaynin annaguna aan waxba laakiin jamaal adduunku wuxuu ku shaqeeyaa siyaasad adigu waxbaad aaminsan tahay anna waxbaan aaminsanahay haddaan mithaal ahaan weye haddaan ishor fadhiisano oo wada hadalno waxaan ka shaqayn karnaa waxyaalo fara badan oo haddii aan la wada hadlin qabsoomi kari lahayn tilaabo cusub weeye horumar cusub weeye cadceed soo baxday weeye in ummaddu ay siyaasiyiintu inay wada hadlaan oo ay turxaan bixiyaan boogahan marka inaad tidhaahdid haddaad waxaas aaminsan tahay kulama fadhiisanayo adna haddaad waxaas aaminsan tahay kulama fadhiisanayo dee xal meesha kuma haysid jamaalow cabdixaafid halka aan ku hayo wuxuu yahay miraha ama lasoo gurtaa marka ay bislaadaan labada qof waxay wada hadlaan markay ogaadaan inay u baahan yihiin inay miis isugu yimaadaan oo xal dhexdhexaada gaaraan waxaan arkayaa nimanka marka waxaa leedahay raalliho waqtiga ay erinaya marka ugu dambeyntii waxaa leedahay waagii yucibka uu baxo lasoo gurto waa ballankeenu yahay exactly dowladda muqdisho amnigeeda ha ka shaqeyso iyo horumarka muqdisho that's it hagaag meelo badan baan yucib ka bixin layn kala ka xiga asalaamu calaykum halo
calaykum salaam soo dhowo walaalow kor yar hadal magacaa abukar shaakay waay waxaan ka soo hadlayaa Sweden abukar shaakay ee Sweden soo dhowo ra'yigayga haddaan cabdixaafid halkan aan ka dhiibto barnaamijkan iyo wadahadalka ah ee Somaliland iyo Soomaaliya ama waqooyi iyo koonfur labadaba haddaan dhaho horta Somaliland waa run ahaantii waa dad horumaray waa dad wax badan qabsaday xagga amniga xagga dimuqraadinimada inkastoo waxyaalo uun bini'aadan ayaa leeyahay qaladaad iyo jiraan laakiin ani maanta caawa waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto muhiimadda ay tahay haddii dadkaasi siyaasiyiinta ah ee gartaan in laisku soo noqon karo oo soomaalinimadii iyo midnimadii dib loo soo celi karo waa arrin aada u wanaagsan oo fiican haddii ay dhici weyso shacabkaa rabaa marka inaa u baaqo reer Somaliland ah in maanta horumarka jira qof siyaasi ah macnaha ma keeni karo maadaama cod iyo qof ah oo maanta horumar weyn oo halka dalkii ka jiro in ay doortaan dadka degan Sool iyo Sanaag iyo Ceen beeshaas inay doortaan inay ka dhigtaan madaxweyne in ay kursiga soo saaraan si markaasi ay u dhacdo oo muddadan beeshana adduunkan ay u arkaan in meesha dimuqraadi ay ka socoto in ay meesha ay ka jirto si markaasi dadka isku qalbi furnaadaan oo dadka qalbigooda la soo jiito oo dalkii uu noqdo meel kastaba dadka is aaminaan oo horumarna uu sii dhaco macnaha abukar waa mahadsantahay thank you waa hagaag waxaa noo haray waqti yar oo aada u kooban laba xayeysiin waan rabaa inaan soo daayo balse aan laba qof fursad siiyo ugu dambeyso qof kale ku xiga halada halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waa kuma ninkaas magacayga shaqala la yidhahdo cabdixaafid shaqale waa ku soo dhaweynaya london baan ka soo hadlaya walaal waxa anigu aan leeyahay sida haddeer adigu ka dhawaajisay in aan garanaysaa had iyo jeeraale la iska ilaaliyo dacaayadaha idaacadaha in la garanaysaa aan adduunyada la iska xidhxidhin bal soo dhawaansho iyo wadahadal wanaagsan si u dhaco waxa ay dawladda maanta jirtaa bilowda inuu madaxweynaha farmaajo meel walba ka yidhaahdo waan ka soo xidhay wax walba waan xanibay oo yacni uu ficiltan wado inuu yidhahdo waan xanibaya wax walba marka sidee baa midho wanaagsan uga dhex dhalan karaa labadan dal mushkiladda labaadna waxa weeye carruurtii maalintii Somaliland ku dhawaaqday inay ka goday Soomaaliya maanta waa qaangaar weyn waa rag waaweyn maba aaminsanaa inay dawladda Soomaaliya la yidhaaho ay ka mid ahaan jireenba marka waxay u baahan tahay walaalnimo in lagu wada hadlo ma aha in la yidhaha cunaqabatayn baan ku ridayaa Ethiopia aan ka xidhaya halkanaan kasoo xidhaya adduunkaan kasoo xidhaya yani marka colaadii unbaa sii kordhaysa marka waxaa leedahay wax walaalow iyo Soomaaliya looga waayo wax kale looma helaye walaalnimada iyo horumarka iyo wada hadalka iyo turxaan bixinta dhibaatooyinka laga wada shaqeeyo haddaan maxaynu ku wada hadliba haddaan colaadu nagu wado marka waxaan u odhan lahaa wax faa'iido ay leedahay ma jirta cabdixaafid ay leedahay sidaa ku kala joogaan aad baa cabdiraxmaan mahadsantahay waqtiga yareynaya oo ku mahad celinaya cabdiraxmaan wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyey shaqala wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee caawa barnaamijka nagala qayb qaato waqtiga oo intaa ku eg awgeed ayaan maaragtay intaa kasii gudbin karaynin waxaan jeclahay inaan ogaga tago barnaamijka markaan ka baxayo laba xayeysiin oo muhiim inaan idiin soo daayo aan jeclahay fadlan inaad daawataan waxbarasho iyo abka yaal la yidhaahdo oo cajaa'ib ah oo kuu sahlayay inaad bangigaaga jeebadda ku qaadatid meel kastoo dunida aad joogtid oo wax lamida aysan jirin adigu aad bank manager noqotid iyo weliba global net oo ah iskuulka ugu ballaaran ugu da-da weyn ee IT-ga ku takhasusay macalin cabdalla uu hogaamiyo waxaan jeclahay inuu mahad celiyo intaa ka hor axmed daahir afaare oo asagu barnaamijkan qeyb weyn ka ah qeybta satellite-ka noo haya farsamada caawa halkan waa cabdixakiin fiqi waxaan kaloo mahad celinayaa deeqa qalumbe wariyaha iyada laftigeeda qeyb ka ahayd waa ku mahad celinaa intiinana daawanaysay ee ka qeyb qaadatay si kastoo u kala fikrad duwantihiin ama isugu lowdihiin waanu idiin mahad celinaynaa waxaanu jecelnahay intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono asxaabta facebooka ee siyaabaha kala duwan laftigooda u hadlayo ra'yigeena xor baa utiin waan soo dhaweynaa idin caburan mayno universal TV baa layihahdaa halkan qof walba xor ayuu u yahay codkiisa iyo fikirkiisa waan soo dhaweynaynaa anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac ayaa idinla soo codsiinayay intaan kanoo kale dib ugu kulmi doono weliya gobonimo aan kaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullah